صاحب يعلم كان صوق علي صعد بانهاي وحين وجرتها بقول طلابو حرونتي CID ده وانا inuu tagi doonaa waxaan diiday in la igu soo diro gurigayga askar iyo la ilaado meel laga soo qabto haddaan tagaynaa xaaladda wixii jiraan xaaladdu waa mid xaqiiqo aan ka hadlayaa saaka isaga cadeeyay madaxweynuhu inuu waarakaasi jiro maaha anigana de way soo sheegeen hadduu xafiisku kuugu yeelo si sharciyana inaad timaada waa waajib mala qaar hore arkeen oo ka yara baqa marka waaran iyo wax la soo qaadee dalku sharci buu leeyahay ninna looga tagi maayo maalin baa wax lagu yiri in cigaalo xamar ku sii socda lagu xidhayaa maxaad ka doonaysaa wuxuu yiri dalka looga tagi maayo maxamed siyaad bare looga tagi maayo waan leenahay Muuse Biixi hanjabaadiisa uga tagi mayno halkan aniga waxa hor u dhacday anigoo aan cabin inay wada garanaysaan ramaaxa oo xabadaydana gaariga iigu jirto oo sita ayaa walaalkii igu hanjabay xabad baan kugu dhufanay laakiin waxba lama soo bixin hore uma sheegin waxaan u rag baan marxaatiyaal ka ahaa waxaan u qarinay deeyna yaroo walaalkii soo diray ayuun baan u arkay sidii caadada u ahaan jirtay waxa dhacday halkaas suuqa gargaar mafrishkay halkaan ku leenahay in lay dhigay qori iyo inaan askariya oo meeshu ka tirsanayeen la yaqaano runtii rag badan baa ogaa odayaal badan baa ka howlgalay faafinin balay way jirtaa aga jugleyn iyo hanjabaad fara badan iyo maxaad ku leedahay dawladdeeda inama yar yar oo imika la soo baxay oo edab daran waa kuwan maalintii hore sheegay Allah naaskii hooyadood ayaa qoyan tan wixii loo soo looga tagi maayo xukun kasto xun looga tagi maayo dalka la badbaadinaya xaq baan u leeyahay inaan sheego wixii qaldan haddaan idhi baashe wuxuu leeyahay xiriid markuu inamada lahaa taga muxuu jeeday warno umadu ha ka garnaqdo dulmiga imika anaga la isleeyay xusbiyada ku cadaadiya shicibkana wuu haystaa waa ka baloodhadooda lagu qabsanay waa ka lagu haysto muxuu hebel sidaasi u yiri muxuu hebel dawladda u soo hadal qaaday waa dawladdeeniye waa tii uu lahaa dii loo codeyn waayo hebel dhirbaaxan ugu la tagay nin walba la dhirbaaxayo qolada sheegta ward ku jiri maaya dalku marxalad xun ayuu maraya annaga niri sheegnay cadaynayna dalku sharci buu leeyahay looga tagi maayo koox yar oo aan cidna ahayn oo argoosiya looga tagi maayo waa ogeydeen inta mas'uul ee ku tilmaamtay xukunka maanta jira in kastoo aan ugu iraado de qudbadihiisa bay inoo dhameeyay oo maalintii ugu horeysay markuu yiri fartayda eedaye bay doonan nin waliba hafisho dukaan la xidho nin la iska xidho mid suuqa xabad lagu dhufto mid lagu bureeyo intuba way imanayaan laakiin guushu wuxuu bay raacaysaa xaq dirarku bay raacaysaa nin la lagaga adkaado adeer maxamed siyaad barraa cidna waxba kaga qaadi waay inay baa waxba kaga qaadi waay waxay maanta u egtahay xukuumadda taagani xukuumadii inay bay u egtahay inay bay u egtahay hadii intaan la jaraayo xaqiiqadaanu sheegaynaa lacagtii dekadu miisaaniyadda kuma jirto saacado cadde waa ilmaadeer baa qaaleeyeen oo waa reer hebel war dadka raacinin umadu way aragtaa waxa meesha ka taagan umadu way aragtaa in yar habeen hadlaysay ayaan aad runtii u la yaabay war dadku samaysanay waa reer budada galiya qofku markuu qalad kasto oo dhan soo dhameeyo reerka la sheegaya baanu nahay kuma raacsanin wadadii baanu leenahay waxay noqonaysaa dhaamkii maxamuud xaashi 16 milyan galay waxa tan lagaga si khasaaro badan baabuur kasto oo mara maanta 70 kilomitir baa la qaaday waxay ahayd marka 5 kilomitir la qaado in shan la inoo dhigo teeni hore waa la baabiyay wadaanu naano waa hal laga daayo dalka sidan oo wixii hal la qabto meenu qaldanahay waxaan hore u sheegnay gawaadhidii dawladda ee dawladda hoose Hargeysa wada arkaysan godadkeeda iyo boholaha magaaladii ka dhex dilaacay in shirkadda laga kireeyay ilaa xaristeena cigaalo wuxuu ka dagaalamay ku eriyay maxamed xuseen in loo dhajiray oo bariyaade ay aad u jeclaayeen reer Burco ayuu yiri makiinadii wax jeexaysay halkan buu dhigtay gaarigii xashiishka qaadayayna isaga leh
kaalintii shidaalka ku shubaysayna kullu dowladda hoosu ku wada qoray waxuma ismu lahayn ninba wax qabadku sibuu ugu muuqdaa nin aad u wanaagsan buu ahaayoo runtii dalka la xajala kale maxamed xuseen laakiin ayaa wuxuu yidhi maxaa shicibka aan waxba haynin in shidaalka iyaga laga iibsadaaba ilaa cashuurtii iyaga laga soo qaaday waa example fiican waxyaabo badan baan xusuustaa runtii haddii aan topica galo wuu ila dheeraanayaa wuxuu yidhi kii faaladda jeexayey soo kan faaladii dowladda hoose rag baa yidhi maxaad ninka wanaagsan u erid wuxuu yidhi waxaan u eriyey faaladan inuu halkan dhiga may ahayn inuu kontaraaga bixiyo ummadda siyaabay ahayd si iyaga cashuurtii laga qaaday ay dub ugu noqoto oo ay u wareegto waxani laakiin hadday gacan keliya ku aruurto sida tamaanta taagan ee ka taagan dalkan ka taagan ma waxa laga adkaystaa waanu sheegaynaa miisaaniyaddii baanu ka hadalnay wasaaradii baa gebigoodiiba fadhiida shaqo socotaa ma jirto meheradii baa wada kacay hay-adii baa iska wada tegey haddaanu nidhaahno waarkadaa dalku ku dhaqmi maayee ma waxa weeyaan jeelka soo gal mayna biixiyo u hanjabaa waaniga nina waxba iga qaadi maayo gurigaa laygula soo galay qoriga waa ogeyd intii ugu dambaysay ergaa nalagu weeraro berberaa nalagu weeraro shiikh baa nalagu weeraro waanu soo taagnayn kuwii horena waanu ka qayb gallay mar aanu naftayda difaacayna iyo mar aanu lahayn dalkaba dhiciya marka adeero halkaan ka sheegi waayo waxyaabahaasi dee adeer fulay mihi hadday ugu dhacdana dhaawacayga la arkaba oonu dhiman haddii kalena haddaan isdifaaci karana waanu isdifaaci laakiin waxa weeyaan dadka shicibka ahee noocaa lagu samaynayo ama hebel muxuu noo hadalayaa ama muxuu yaa laga sheeganayaa tan waar yaa tan iga sheeganaya iminkaan taaganay xabarii dagaag waa maqlayseen wixii ka taagnaa shalayto 60 kilomitir bay inoo jirtaa waxa ka taagan wajaale waa ogtiin waa la wada socotaan halkuu marayaa dalkii annagaa leh hogaamintii kulmiye wuu la bayray maxkamaddii badbaadada ha samaysto hadda hana saarudila nagu xukumo diyaar baanaanu nahay